marka ugu horeysa hambalyo waxaan isugu wada hambalyeynaa sanad guuradii 24aad ee ka soo wareegtay aasaaskii dowladda Puntland ee Soomaaliya. waxaan kaloo fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan isugu hambalyeyno sanadka cusub ee hijriyada ee maalintii Sabtida dhashay. runtii xafladatan waxay ahayd xaflad ka duwan xafladihii la dhigi jiray oo ay sababtay xaaladda dalkeena ku sugan yahay. waxaad ogtihiin bulshadii ay dowladdan u dhalatay oo ay u adeegaysay oo xoogooda miyiga jiray iyo magaalaba waxay ku sugan yihiin xaalad adag oo nololeed. waxaa isugu darsamay abaar iyo sicir barar. xaaladdaas dowladda iyada oo shacabkeeda hogaaminaysa dal iyo dibadba wixii jooga waxa ay ku dhawaaqday in gurmad dadka loo fidiyo iyadoo kaashanaysa dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha ee caalamka. waxaa qabsoomay shaqooyin aad u fara badan. waxaa la furay oo la aasaasay guddi isugu jira dowladda, culummada, ganacsatada, qaybaha kale ee duwan ee bulshada si ay u noqoto gurmad qaran ama gurmad heer Puntland ah oo la rabo in laga wada qayb qaato. waxaan uga mahadcelinayaa doorka ay culummadu ku leedahay barnaamijkan daadihintiisa iyo dadka inay ku jeediso bixinta khayrka oo aan iskaalmaysano. fariinta ugu muhiimsan ee caawa waa fariinta ku aadan sidii dadka loogu gargaari lahaa. halka waxaa ku dhigan shaashadda nambarada akawnada. waxaana maqlaya dadka dibadda jira iyo dadka gudaha jooga. barnaamijku waa live, ma aha inta laga yaboohayo inta halka fadhida keliya. waxaan rabaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo maqlaya meel uu joogaba inay sanduuqaas ku soo ridaan lacag. waxaan rajaynayaa sanduuqaasi waa sanduuq meeshii loogu talagalay meel aan ahayn ku baxayn oo dowlad iyo culummo iyo shacab ka qaybihiisa kala duwanba ay wada maamuli doonaan, loona qaybin doono shaqooyinku sida iyo meelahay ku kala muhiimsan yihiin. waxaan u rajaynaynaa inta ka shaqaynaysa miisaanka xasanaad Ilaahay inuu ugu daro. waxaan sidoo kale bulshadeena u baryaynaa Ilaahay inuu ka dulqaado dhibaatada culus ee haysata oo Ilaahay u baadiiq kale raxmad caamiya Ilaahay inuu siiyo. waxaad ogtihiin maanta oo kaleeto waxay ahayd maalintii quruxda maanta dalkan iyo dadkan ay leeyihiin loo horseeday inay heerkan iyo sidaan aadaan. ummad aan kala dambeyn iyo maamul lahayn dawli ah casriga maanta jooga inay noolaadaan aad bay u adag tahay. runtii waxaan Ilaahay u baryaynaa intii aasaasayaashaha iyo madaxdii soo martay Ilaahay inta noolna inuu caafimaad taama siiyo, intii dhibatay Ilaahay u naxariisto. qof kasta oo Puntland ka soo qayb qaatay hadduu yahay madax siyaasadeed iyo hadday yihiin madax ciidan iyo hadday yihiin madax dhaqanba intooda waxaan u rajaynaynaa intii dhibatay Ilaahay inuu naxariisto, inta noolna Ilaahay inuu cimri iyo farxad iyo wanaag ku nooleeyo. bulshada reer Puntland wixii ay ka filaayeen Ilaahay inuu ku hagaajiyo kuwa qabta marxalad kasta siday taalla inay u yaalaan. hadday murugo jirto inay la murugoodaan, hadday farxad jirto inay la farxaan. madaxda Puntland sidaasaa laga doonayaa insha Allah. waan rajaynayaa arrinta adag ee dadkeena haysato inuu Ilaahay ka masamato bixin doono. warbixinada runtii meeshan aan ku aragnay ee aad looma fiirsan, laakiin golaha wasiirada iyo gudiyadu warbixinada la soo bandhigo in badan waxaa lagala baqay dadka qaybtiis oo runtii caloosha jilicsan inay ka damqadaan. warbixino foolxun oo runtii aad u adag oo dhulkii iyo dadkii iyo dunyadii ah baa jirta. marka insha Allah waan rajaynaynaa in arrintan la wado ay hirgeli doonto. waad ogtihiin dowladdu si guud oo dowlad ahaan ah ayay ugu deeqday 1 milyan. sidoo kale halka waxaa laga sheegay in shaqaalaha iyo ciidamada tooda gaarka ay shakhsiga u leeyihiin ee mushaharooyinkooda ayadana inay ka jari doonaan lacag 200 oo guddigu u gartay. waxaa intaa u sii dheer qof kasta oo shaqaalaha dowladda ka tirsan ama ciidamada ka tirsan heerku doona ha jooge waxay la mid yihiin bulshada Soomaaliyeed oo maaragtay sadaqada baxsanaysa
akoonnadaas ayay la macaamili doonaan iyagana haddii ilaahay idmo si guud iyo si gaar intaas waa muhiimadda runtii sanadka aasaaska u ahayd sanad guuradan oo la rabay in lagu weyneeyo in dadka reer Puntland guud iyo dibadba lagu baraarujiyo inay isu naxariistaan oo ay bulshadooda ay u qareebaan inta marka laga tago dabcan waxaa laga sheekeeyay Puntland iyo heerarkay soo martay waxaa la arkay muddo xileedkii hadda aan joognay intii ka qabsoontay 3 sano ee hore sanadkan dhexdiisa intii ka qabsoontay in badan halka laguma soo bandhigin laakiin waa isku type intaas la qabanayay ayaa sanadba wax lagu darayay ilaa ay maalintii aan xilka nimid maalinba in baa la qabanayay qaybaha asaasiga u ah qorshahii siyaasadeed ee aan xukunka markii aan u tartamaynay aan bulshada u soo dhignay bulshaduna iyada qiimeyn doonto wixii shalay aan u sheegnay iyo waxa maanta la qabtay iyada qiimeynta u deynayna waxaan xoog saarnay inaan nidaamkii dawliga ah ee soo socday oo runtii marxalado kala duwan soo maray marxaladii anaga aan tartanka soo galayna waxaan u aragnay marxalad u baahan waxyaabo hortabin leh oo Puntland ay u baahan tahay waxa ugu muhiimsanaa inaan hay'adihii dawladda dib u tayeyno maadaama ay muddo dheer soo jireen xilligaas aan anagu xilka imaanaynay 20 sano ka badan ay soo jireen waxay u baahdeen in dib loo fiiriyo oo tayeyn lagu sameeyo sidoo kaleeto waxaan qorshaheena ka mid ahaa inaan tiigsano waxyaabo Puntland tan iyo maalintii la aasaasay ku naaloonayso oo aan la gaarin waxyaabaha tayeynta ahaa waxa weeye waxyaabaha in badan lagu celceliyo oo dib u habeynta ciidanka iyo shaqaalaha iyo waxaas waa wax jiri jiray oo u baahnaa tayeyn iyo hay'adaha dawladda dardargelintooda iyo isku dubaridkooda waxyaabaha u baahan in la tiigsado oo saldhigga ahaa waxa ahayd kaabayaasha dhaqaalaha khaasan jidadka oo aan wax weyn laga qaban runtii dhinacaas iyadoo waxay ahayd waxyaabaha aan u arkeen inay muhiim ka ahayd waxaa kaloo iyadana kaabaha dhaqaalaha iyo kaabaha siyaasadda oo saldhigga ugu muhiimsan ahaa oo nidaamka doorashooyinka dimuqraadiyiinta ah labadaas qodob waa laba qodob oo runtii ka duwanaa qorshayaashii hore ee dawladihii kala dambeeyay ay wadi jireen oo la tayeeyay kuwa la tiigsanayay qodobka ugu muhiimsan dawladda waxa weeye 98 maalintii la aasaasay waxaa gundhig u ahaa oo charterkii ugu horreeyay lagu qoray in nidaamka dawladda Puntland uu ahaado nidaamka axsaabta badan qabaa'il wada degan baan nahay shucuub kastana way leedahay laakiin si loo noolaado oo nidaam dawliga loo dhiso waxa loo baahan yahay nidaamka suldada lagu gaarayo inuu ka duwanaado nidaamyo fara badan oo habka ama magta aan ku qaybsano ama waxyaabaha kale oo nagu soo dirsan aan ku qaybsano magaalooyin baa la yimid dawladaha la yimid waxaan u soconaa dawladda Soomaaliya inaan qayb ka ahaano ee federaalka ah waxaan rabnaa in dalkeenu haddaba way joogaane qunsuliyadaha ka furan waxaan rajaynaynaa in qunsuliyado kale oo fara badan ka furmaan ajaanib fara badan baa maanta joogta oo ka shaqeynaya kambaniyo fara badan oo ajaanib ayaa rabnaa inay maal gashtaan khayraadka aan leenahay sida dunida kale oo dhan ay horumartay kulligood markii la maal gashtay way wax noqdeen Soomaalidu waxa daliil ugu filan sida ay dadka Soomaaliyeed u maal gashteen wadamada dariska ah sida Kenya u maal gashteen sida Zambia u maal gashteen sida Uganda u maal gashteen haddii ay ku og yihiin dalkooda in uu nidaam dawli oo adag jiro halka ma aadeen kanay maalgelin lahaayeen waxa inta badan maalgelinteena meel kale geeyay waxa ahayd nidaamkeena dawliga oo jilicsanaa marka muhiimaddu waxa weeye nidaamka dawliga ah wuxuu ku dhisayaa nidaam iyo sharci iyo saldhig siyaasi oo dadku ay qeexdaan wadankaas ma wadan la isku haleyn karaa siyaasaddiisa ma siyaasad degan buu ku socdaa oo aanan khalkhal galaynin ma siyaasad qofku uu sharcigu ka weyn yahay ku socotaa mise waxay ku socotaa siyaasad sharci ku qotonta oo maxkamadaha iyo sharciga iyo xeerarku ay shaqeynayaan haddii taa la waayo waxaad ogaanaysaan dadkeena in la maalgasho aad u adkaanaysa meesha ugu horeeya dalalka laga fiiriyo dad badan oo ganacsatada halka jooga waxa weeye inta aadan wax kala fiirin marka dal rabta ama degtid ama wax ka sirsid waxa ugu horeeya nidaamkiisa siyaasiga fiirinaysa Soomaalidu markay qaxaysay
waxay Yurub iyo Mareykanka iyo meelaha u aadeen hadda meelo kale waa aadi kare waxa uu weyn aadaya waxa weyn nidaam siyaasi oo degan oo muddo dheer ku noolaan karo oo mustaqbalkiisa ku saleyn kara ayahay wadan kasta oo nidaamkiisa siyaasiga uu hooseeyo xilligaas waad aragteeno wadamadan bariga Yurub la dhaho iyagaba Yurub bay ahaayeen nidaam siyaasi oo deganeyn baa ka jiray kuma aysan hakan jirin way dhaafi jireen wadamada Yurubta galbeed bay tagi jireen oo siyaasad fadhida leh sidaas oo kale aad ogtihiin Puntland dad fara badan oo deegaanada kale ka yimid oo degay maxaa yeelay nidaam degan oo siyaasi ah nidaamka siyaasiga ah oo nabadgelyada noo horseeday baynu hadda ilaa hadda haysan laakiin nidaamka